waxaa ka dhacday qiso mucjiso leh dalka Shiinaha, halkaasoo ay ku dhasheen cusbitalka laba mataana ah, halkaasoo markaa lagu wargeliyay waalidkii dhalay carruurta inuu labada mataanihii mid nool yahay kii kalena uu dhintay. halka waalidkii ay farxeen markii hore, dabadeedna ay markii dambena la murugoodeen inuu mataanahoodii mid aanu noolayn, ayaa waxay hooyadii tidhi, waxa aan doonayaa inaan soo eego ubadkaygii. markii ay hooyadii soo dul istaagtay ay eegtay labadii ubadka ahaa, ayaa waxay kor u qaaday wiilkii dhintay ee mataanka ahaa. markay ku qabatay laabteeda hooyada halkaana ay ka oyday, ayaa ilaahay ma diline dhakhtarka ayuunbaa inuu ku sheegay inuu dhintay, ayaa ilaahay mucjisadeedii geliyey. markaa ilmihii wuxuu ku soo toosay isagoo ooyaya. hooyadii halkii qiiradii ay ka ooyeysay waxay u beddelantay farxad. taasina waxay noqotay mucjiso aad looga yaabo. laakiin ma dhinte waa ilaahay wuxuu dilana ayuunbaa dhintaa. bil'aadmiguna wuxuu sheegaa waa intuu ilaahay gaadhsiiyo. waa maxamed sharaf, TV caalamiga Star TV, magaalada Copenhagen.